su-aasha koowaad waxay ku saabsan tahay bisha ramadaan soo gelitaankeedu muxuu ku sugnaanaya bixitaanka bishu si ay baxaysaa maxay ku sugnaanaysa jawaabtu waxay tahay bisha ramadaan soo gelitaanka ay soo gelaysaa waxay ku sugnaanaysaa laba shay mid ahaan aragti bishii la arko waa ku sugnaanaysa shay labaadna waa ku sugnaan kartaayo haddii markaa bisha shacbaan soddonkeedu dhammaystirmaan yadana bishii ramadaan waa sugnaanaysaa bishii ramadaan waa sugnaanaysa waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatih yacnii sooma markaa bisha aragtaan afurana markaa bisha aragtaan yacnii bisha ramadaan markaa aragtaan sooma bisha shawaal markaa aragtaanna afura riwaayo kale waxay sheegaysaa idaa ra'aytumuuhu fasuumuu wa idaa ra'aytumuuhu faaftiruu markaa bisha ramadaan aragtaan sooma markaa bisha shawaal aragtaanna afura fain ghumma calaykum faqduruu lah riwaayo kale waxaa ku soo aroortay faakmiluu ciddata shacbaana 30 yowma haddii markaa bishii laydinka qariyo arki weydaan tirada shacbaan 30 dhammaystira 30ka shacbaan waa inay dhammaadaan oo dhammaystirmaan labadaa dariiq bay ku sugnaataa markaa bishu ay ku sugnaataa aragtida marka la arkaayo culammada qaarkood waxay yidhaahdaan mid walba waa in markaa laba markhaati baa loo baahan yahy laba markhaati oo muslimiin ah oo cuduul ah waa inay arkaan bacdu ahlicilmina way kala farqiyaan oo waxay yidhahdeen soo gelitaanka bishu ay soo gelayso waxaa ku filan shakhsi keliya inuu arko ayaa ku filan xadiiska ibnu cumar ayaana markaa laga deliishadaa taraa'a annaasu alhilaala faahbartu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam annii ra'aytuh fasaama wa amara annaasa bisiyaamih waa xadiisku markaa daahir ku yahay abu daawuud wakhayruhu baa soo wariyey ibnu xibbaan iyo xaakim iyo culamo kalena waa saxiixiyeene waxa uu daahir ku yahay isaguun inuu arkay oo aragtidiisa lagu soomay ayuu xadiisku daahir ku yahay in la yidhaahdo cid kale ayaa markaa laga yaabaa inay wehelisay yacni waxa weeye lama sheegin daahirna wuxuu ku yahay sheegista uu isagu sheegay inuu arkay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku soomay dadkana ku amray inay soomaan saasuu daahir ku yahay faahbartu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam annii ra'aytuhu fasaama wa amara annaasa bisiyaamih haddaan bishii la arkin markaa layskama soomayo ee 30ka markaa shacbaan baa la dhammaystirayaa sida markaa xadiiskiiba tilmaamaayo oo riwaayada bukhaarigu ay caddaynayso faakmiluu ciddata shacbaana 30 yowma tirada shacbaan waxaa dhammaystirtaan 30 markaa maalmood dhammaystira oo 30ka kaamil yeela bisha qamariga ahi waxay noqotaa laba mid ama 29 bay noqotaa ama 30 bay noqotaa inay 29 ka yaraatana ma dhacdo inay 30 ka badato bisha markaa qamariga ee dayaxa markaa laga eegayaa inay ka badato 30na iyadana